fadhigii aan caadiga ahayn ee ay maanta iskugu yimaadeen labada gole baarlamaan ee Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada uu shirgudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxa ay cod gacan taag ah la doonayay in ay ku ansixiyaan isla markaasna amba ay ku diidaan xeer uu soo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland kaas oo xaalad degdeg ah loogu soo rogayay 3 degmo oo ka tirsan gobolka Sanaag kuwaas oo kala ah gar adag Ceelaf Weyn iyo Cerigaabo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha ku wargeliyay inaanay jirin dood laga galay xeerka isla markaasna si toos ah loo gudagali doono codaynta iyo diidmada iyo ka aamusnaanta xeerka ee ay mudanayaashu xaq u leeyihiin intaas kadib waxa uu gudoomiyuhu sheegay in ay gacanta taagaan dadka ogol in ay u codeeyaan in la meel mariyo xeerka uu madaxweynuhu u soo gudbiyay xeerka waxa aqriyaya xogeynta aqriyaysa markay dhamaato waxa la gelinayaa cod xildhibaanku wuxuu xaq u leeyahay haa iyo maya wax kale ma jiro miya aamus waa ku yiri balse waxa meeshii ka dhashay buuq iyo sawaxan muran muddo jiitamayay kadib gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax waxa uu xiray fadhigii isagoo ka kacay shirgudoonkii uu shirgudoominayay fadhigu waa xiran yahay wayno sabtida la furaya fadhigu markii uu fadhigu soo dhamaaday mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada oo warbaahinta la hadlay waxa ay ku doodeen isla markaasna ay sheegeen inuu gudoomiyuhu sameeyay sharci jabin isla markaasna fadhigii oo socda uu kacay sidoo kalena aanu siinin fursadii ay ku codayn lahaayeen xildhibaanada ka soo horjeeda meel marinta xeerkaasi maanta shirgudoonku wuxuu sameeyay khalad majority wuxuu ahaa no laakiin golaha ayuu xidhay taasina waa khalad waana sharci daro waana ka soo horjeednaa aqbalina mayno gobolada dalka in qaar la gudoomiyo waxa saaka la isugu yimid waxay xeerka degdega ee xukuumaddu soo saaray in lagaga doodo golaha in xeerka loo qaybiyo mudanayaasha inay doodu horeyso oo la isqanciyo oo in xaaladan biriambalka ku sukan ee lagu soo rogay xeerka degdegii inay waafaqsan yihiin iyo in kale in laga doodaabay ahayd tii iyadii oo la gaarin oo shirgudoonku diiday in xeerka la qaybiyo doodna laga yeesho ay arkayseen markhaati ka wada ahaydeen ayaa markii uu codka geliyey 8 baa u codeeyay xeerka in sidaa lagu socodsiiyo markuu arkay 107 iyagoo fadhiyaan ay 8 qura codeeyeen muu gaarin inuu yiraahdo yaa diidan hal lagu celiyo buuri waa taabaqlayseen waana mamnuuc marka uu codka hore qaado ee uu diiwaan geliyo ee haadii intay tay uu rigoor garaysto inuu halka ku joojiyo maaha waa yaa diidan inuu yiraahdo oo taana qoro yaa ka aamusay inuu yiraahdo oo taana qoro oo xeerku ku saasuq dhaqan galo taa uu diiday oo uu joojiyo adarkayseen intuu tiro geliyay buu haddana markuu arkay inay yar tahay joojiyay haddana waa ka golaha xidhay si looga hawlgalo weeye sabtida xaalad isbedesha in laga hawlgalo xukuumadda uu kala tashado maanta sidii golaha loo burburin lahaa ee awalba wixii lagu burburin lahaa lala soo dhex galo inta loola jeedo waa intaasu xeeroosaadku wuxuu sheegaya marka codaynta lagu jiro xildhibaan kaliya bixi karaa ma jiro maanta waxa dhacday iyadoo codaynta lagu jiro codayn baa lagu jiro waa la tiriyay tiradii hore way dhacday marka codaynta lagu jiro waxa mamnuuc ah inuu xildhibaan ka baxo fadhiga ilaa inta codayntu dhamaanayso ceebtii u weyneed baa maanta dhacday shirgudoonkii baa baxay iyadoo codayn lagu jiro gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax isaga oo fulinaya amar uu jeefka ku sito wuxuu diiday in uu codkii labaad qaado wuxuu golihii buu xidhay wuxuu ka kacay maxay tahay golihii oo la fadhiyo maxay tahay isaga dastuur jabin iyo xeer jabin iyo xeer hoosaadkiiba jabiyay maxay tahay talaabooyinkeedana ilaahay ka dhigo waa la qaadaya golin ama berito halla isku yimaado ama saad mal isku yimaado wali noogu mamtaani no bando mamtaagan shirgudoonku muu sheegin go'aankii dhacay ee diidmada ahayd taasoo lagaga soo horjeeday xukun military waxa dhacay dad bakhtiyaya oo abaara ku jiraan oo cid walba leh oo baahi leh oo wax walba leh ayaa la yiri xukun military waana maxamed siyaad barre qabsaday waa tii oo kale waa tii maxamed siyaad barre aynu ka dagaalanay
iminkana annagu golaha haddaanu nahay dagaalkaasaanu wadnaa waanu ishortaagaynaa dhinaca kalena mudanayaasha iyagoo taageersanaa xeerkan ayaa ka gaabsaday inay warbaahinta la hadlaan iyagoo dhowr xildhibaan oo saab TV isku dayay inuu arrinta wax ka weydiiyo ay sheegeen in aanay xilligan aanay ka hadlahayn maxamed xasan daacad saab TV hargeysa